nin u dhashay dalka Hindiya oo aan cidiyaha iska jarin muddo 66 sano ah ayaa waxa ugu dambeyntii lagu guuleystay in laga jaro cidiyaha gacmihiisa oo dhirkooda uu gaaray 77 inji oo u dhiganta 195.58 sentimitir. ninkaasi oo lagu magacaabo Shaydar Jilaal ayaa 82 sano jir waxa uu qaaday horyaalka diiwaangelinta layaabka adduunka ee loo yaqaano The Guinness World Record iyadoo cijiisa ugu dheerna ay ku yaalaan gacantiisa midig. marka cidiyihiisa la isku daro waxay dhirir ahaan gaareen 29 feet waana cabir aad ugu dhow dhirirka basaska ka shaqeeya magaalada London. Shaydar Jilaal oo ka soo jeeda magaalada Pune ee dalka India waxay dhirirka cijihiisu bilaameen inay koraan markii uu 16 sano jir ahaa. waxa la sheegay in cijihiisa ay bilaabeen inay koraan sanadkii 1952 kadib markii macallimad dhangad oo ku garaacay si kadis ah oo uga jabiyay cijidii ugu dheereed cijihiisa. laga soo bilaabo maalintaas wuxuu go'aansaday inuusan haba yaraatee iska jarin cijihiisa. waxa uu dhibaato ku qabay cidiyaha marka uu seexanayo iyadoo sidii ilmo yar ay dhinac jiifaan sida ku cad sawirka sare, balse ugu dambeyntii waxa cidiyaha looga jaray munaasabad ka dhacday magaalada New York ee dalka Mareykanka. waxa uu go'aansaday in cijiyihiisa la dhigo madxaf ku yaala magaalada New York si ay dadweynaha ugu soo daawasho tagaan. si kastaba ha ahaatee qofkii arka sawirada iyo muuqaalka laga soo duubay ninkaas ka hor inta aan laga jarin cidiyaha waa hubaal in dhabanahays uu ka qaadayo cidiyaha dheer ee ninkaasi laga jaray. fadlan haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada. mahadsanidin.